kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeena falaqeynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa ugu weyn Yurub oo sheegtay inay wajahayso cadaadiskii iyo loolankii ugu adkaatan iyo intii la sameeyay ururka midowga Yurub dalka Britain oo lacagtiisa pound-ku ay liicday kadib markii ra'iisul wasaarahoodii la dhigay qaybta xaaladda dadka liita iyadoo xaaladda wararka ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha dalka Britain ay hayo shirkii Ruushka iyo Saudi Arabia ee la doonayay in lagu xaliyo qiimaha saliidda oo burburay iyo waliba Trump oo labada dalba u dhiibay gobo runa isagoo sheegay in uu labadaba cunaqabatayn saarayo madaxa guud ee hay'adda WHO ayaa ku gacan sayray hadalkii ka soo duulay dalka la yiraahdo Faransiiska dhaqaatiirtooda isagoo ku tilmaamay in hadalkaasi uu yahay hadal cunsurinimo ah talaabana aysan u qaadaynin hay'adda WHO in ay ku geyso baaritaan iyo waliba wax loo yaqaan markaas tijaabada talaalka qaaradda Afrika xayawaankii ugu horeeyay oo asagana uu gaaray xanuunka markaasi oo bini'aadan qaadsiiyay ayadoo la sheegay in xanuunkan uu yahay dad mar iyo xayawaan mar labadaba halka kala socotaan waa wararkii